السلام عليكم. Do you know where the headphones are? Yeah. السلام عليكم. سأل لي يا السومالي محمدي سولا ما فيعنا يا سولا ما عاف ما تقبو reer dudaay soo dhawaada reer dudaay soo dhawaada see layahay mala fiicno yaa halo soomaaliyey mincaan maxaaj soo dhawow walaal soo dhawaada اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. samater haddaad tahay qolooyinka dawladda hantiya haddaad tahay aniga waxba hayga weydiina arrintaas naagtaa ka hadlaysid maba aqaanba may fahamti marka niyow xishood ahi anaga dawladda soomaaliya ka dhexaysaa soomaaliyaan ka hadlaayaa dawladdana ayadaa lugaha kula jirto qofkii dawladda lugaha kula jiro waa ka hadlaayaa may garat yaa marka dhiyow xishood dumaashi aniga kuma aqaan naagtaa dumaashi inuu ma aqaano waxbana aan agteyda kama aha waxbana iimaha aniga xishood niyow samater bile iga xishood mise waxaa tahay ku caytama facebooka niyow cayd diyaaro miye raalli iga noqo salaamu calaykum soomaaliyey see layahay mala fiicno soo lama fiicno soo lama faayo reer dudaayaan u bixiya soomaali yaa reer dudaaye soo dhawaada bes dawladda haddaad ahaan wiil soomaaliyeedaad tahay dhib ma lahan soomaaliyaan nahay soomaali way naga wada dhexaysaa dawladdaas hay soo xijin ani soomaalidaasaan kala mid ahay dawladda hadday fiican tahayna waa ammaanayaa hadday xun tahayna waan dhaliilayaa marka taas waa aniga joyskeyga may fahamtay samater haye soo dhawow walaala soo dhawow maxaa la hayaa dawladdii maxay xaggay maraysaa dawladdii marba meel u duulaysay marba gobollo u duulaysay marba dad leynaysay maxaa lagu hayaa meesha yaa soomaaliyay soo duceeya ilaahay dawlad fiican oo cadaalada inuu alla noo keeno soo duceeya soomaaliyay soo duceeya dawlad fiican ooy soomaali ku degto oo dhibkii iyo dagaalka iyo dhimashada iyo wareerka naga saarto soo duceeya yaa marka soo duceeya dawladdan hadday xun tahayna ilaahay inuu naga qabto oo ilaahay naga burburiyo oo ilaahay naga joojiyo kusoo duceeya dawlad xun ilaahay hana dhaafiyo bilaash
markii hore xasan baan kasoo horjeednay xasan waa loo daraystay xasan sheekh waa loo daraystay marka soo duceeya ilaahay dowlad fiican noo keeno dowlad wanaagsan dowlad soomaali ka midaysan tahay dowlad soomaali mid u tahay dowlad soomaali ku wada faraxsan tahay raas caseer iyo raas kambooni soo duceeya soomaali maxamed ay soo duceeya qabiilkii qurunkana allah idinka tirtiro qabiilkii qurunkana allah idinka tirtiro yaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa axmed iska hadal oo inayga ree dad wada waalwaalan baa soo gala halkaan oo dadka iska caaya iska aflagaadeeya asoo qofkii aqoonin wax ka sheega aflagaadeeya marka wax waalan baa u badan wax cabsan baa u badan wax mudan baa u badan wax soo waasho sariirku urursan baa u badan wax nolosha ka dhacaa u badan marka iska caytama aniga waxbaa ii soo qorin axmed haddaad soomaali tahay anigu soomaali baan ka hadlaya cidna ma ahayn cidna ma aflagaadeynin marka aniga waxba ha ii soo qorin waxaa ii soo qortaa ma jirto edab u fadhiniyaho may garata niyaho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda kale waxaa idiin sheegaa soomaaliyay dowladdan soomaali bay ka dhexaysaa shalay markii la dooranaayo waan faraxsanayn waan aydsanayn waan ku riyaaqsanayn waan u hanweynayn waan u kacnay waan u kufnay waan u hurdabeelnay ya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu faadumo jamaal soo dhawow sister gacmo furan ku soo dhawow wixii soomaaliya oo qabiil iyo qurun ku jirin ha soo dhawaadaan wixii qurun iyo qabiil ku jirana ha iska baxaan oo jiran markii waddankeena hadda qabiil ku baaba'ayaaba qabiil buu hadda waddankiiba ku baaba'ayaa aargudsi iyo qurun ka socoto waddankii soomaaliya marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dowlad fiican allah inuu noo keeno dowladdaana allahna dhaafiyo ee reer xididka ah annaga xidid baana maamula dowladdan xidid baana maamula xididna dowlad kuma dhisanto xididna dowlad kuma dhisanto soomaaliya oo isku timaado ayay dowlad ku dhisataa qabiil kastoo soomaaliya jareer iyo jilic iyo soomaali maxamed oo dhan waxa allaale wixii luuqadda soomaali ku hadlahaya may fahamta calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu deeq yuusuf soo dhawow walaalo soo dhawow way fahamteen soo maaha soomaaliyey markaa soomaaliyey dowlad fiican ilaahay u barya in dowlad fiican alla noo keeno in dadkan qabiilka dadka ku laynaya alla naga qabto in soomaali bogooda burcad alla isku mariyo inay soomaali gacmaha isqabsato qabiil iyo qurun waxay soo galo ilaahay inuu naga qabto duceeya shamsi eedda macaan soo dhawow eedda macaan yaa ducadiina waa la aqbalayaa wiilkaan walaalkayna usoo duceeya may garate waa la doortay soomaali waa dooratay ilaa hadda waa la la-yahay ahey villa soomaaliya u iska dhex fadhiyaa hawshiisa dad kalaa qabsanaya dad kalaa dadka laynaya marka usoo duceeya ilaahay waxa la saaray iyo qashinka la cabsiyey inuu alla ka tirtiray sixirkii qurunka la siiyey usoo duceeya soomaaliya usoo duceeya waxaa laga yaabaa intaas soomaali qof ilaahay barakeeyey inuu ku jiro usoo duceeya qashinka la cabsiiyey ee villa soomaaliya madaxtooyada lagu fariisiiyey ilaahay inuu ka qaado usoo duceeyo qofkii ku sameeyey inuu ilaahay ka qabto usoo duceeya calaamad degdega inuu ka ifiyo usoo duceeya dadka meesha ku haystee hostageka ku haystana ilaahay inuu ka qabto usoo duceeya soo duceeya wixii xun waa la inkaarayaa hibaaq sister wixii xun oo ilaahay ka baqaynin oo rasuulka ka baqaynin oo qashin ku jiro oo shacabka islaamid laynahaya ee soomaali isku dilahaya waa la habaarayaa sister madaxweyne annaga dooranay madaxweynihii aan dooranay waa la-nahay aawe madaxweynihii aan dooranay dad kalaa ka soo horeeya dad kalaa dadka baabi'inahaya
dad kalea dadka dilahaya waad aragtaa dowlad goboleedyadii waa la kala jejebinayaa marba meel baa loo kala jebinayaa shalay hirshabeellay ahayd maanta waa galmudug may garatay marka ani waxaan idin leeyahay soomaaliyay yaa marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana ka baxayaa haddadan may garatay soo duceeya ilaahay dawlad fiican inuu noo keeno waana idinka baxaya ani may garatay soomaaliyay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ya caaw haa insha allah caaw waan idinku soo noqonahayaa markaa soo duceeya ilaahay dhibkeenu naga qaado dadkii dhintay maanta dagaalka lagu laayay askartii la laayeen usoo duceeya jannadii farduus allah ka waraabiyo dadka dhibka qaban ilaahay dhibkeenu ka qaado soomaalina inuu ilaahay mideeyo gobollada lagu dagaalamayo dagaalka loo aadahay in ilaahay ha naga qabto dowlad goboleedkana u duceeya inay gacmaha isqabsadaan oo mowqif yeeshaan marka waxaan leeyahay soomaaliyey waddankii uu naga baaba'ahayaa dagaal nooma fiicna dil nooma fiicna wareer nooma fiicna maalinba dad inaan iska layno iska xasuuqno nooma fiicna waa inaad soo ducaysaan ilaahay dhibka ha naga qaado ilaahay dawladdan hadday xun tahayna ha naga qabto dadkaan dadka laynahayana allaha ka qabto madaxweynahana usoo duceeya ilaahay sixirka iyo qurunka inuu ka qaado ilaahay caadigiisa inuu ka dhigan usoo duceeya ilaahay intuu soo istaago dadka shacabka soomaaliyed wax ugu qabtana ugu soo duceeya wasaqda la siiyeyna inuu ilaahay ka tirtiro oo dadka siiyeyna alla ka qabtana ugu soo duceeya marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maya cidna ma habaarahayo yaasiir cidna ma habaarahayo dawladdii baa sii janjeerta madaxweynihiina waa la la-yahay marka maadaama la la-yahay madaxweynihii villa soomaaliya madaxtooyada lagu xirtay uu halkaa ku xiran yahay waa inaan u duceynaa inuu banaanka soo baxo dagaalkaa inuu joojiyo waa inuu duceynaa waxa la siiyey qurunka la siiyey sixirka lagu xeendaabay inuu alla ka qaadano ugu duceeya marka waa loo hanweynaa waan u hanweyneyn soomaaliya oo dhan waan jeclayn sheekii shariif oo caana waan u istaagnay waana u faraxsaneen waa loo duceeyey maka meel kasta madiina meel kasta waa looga duceeyey laakiin balaayaha afka alla u galay dad aan ilaahay ka baqaynin oo rasuulka ka baqaynin oo aan xishoonaynin oo dhiigga islaam ka xishoonaynin oo aakhiro fiirinaynin oo adduun israaciya alla daba dhigay usoo duceeya waxa ku sameeyeen alla inuu ku celiyo usoo duceeya maxamed nin fiican weeye balaayaha qoorta alla u geliyey dad xun iyo waxaan dhaqankooda la aqoon ba alla qoorta u geliyey ma aha qabiil inaan caayahayo anigu dadka ku xeendaansan baan ka hadlahayaa sida uu ka mid yahay dhuxulow sida uu ka mid yahay dhagdheer sida uu ka mid yahay dhegay sida uu ka mid yahay khayr beele sida uu ka mid yahay islaamtan la saynabaysanahayo iyaduna saynab bilqan usoo duceeyey alla inuu ka qabto usoo duceeyey qabiil ma caayan qabiilna ma caayi karo sheekh shariif baa ku jira dadka dawladda burburin ayaan ka hadlahayaa dadka soomaali isku dirayaan ka hadlayaa dadka marba dowlad goboleed isku dirahayaan ka hadlahayaa hubka iyo lacagta ku khasaarinhayaan ka hadlayaa qabiil ma caayin qabiilna ma caayi karo sharaftaydaana ka weyn qalib sheekh shariif inaan caayo dadkaa wey dadka dawladda aana dooranin ee dawladda maanta gacanta ku haya ilaahay inuu ka qabta madaxweynaha usoo duceeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa isku soo noqon doonaa soo duceeya taasaa noo ballana soomaali inaa midowdo soomaali inay far noqoto soomaali inay isku timaado soomaali alla inuu walaaleeyo soomaali dawladdeedii sharafta lahayd inay soo noqoto soo duceeya soomaaliyay soo duceeya dadkii maanta dhintayna un allaha naxariisi janna allaha ka waraabiyo dowlad goboleedka dhibaatada lagu hayana ilaahay dhibkiinu ka qaado usoo duceeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana idinka baxayaa salaamaha waa idin sii salaamay maasha allah babaay